bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal ku soo dhowaada warka habeenay haga meediya qodobada caawa aan idin hayno waxa ugu dooroon dagaalkii siyaasadeed ee u dhaxeeya dawladda iyo mucaaradka ee xifiltanka calaamasaarka madaxweyne Madoobe oo dawladda lagu garaacay wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Kismaayo ayaan idin soo gudbin doonaa hadduu alla idmo sidoo kale waxaad ku daawan doontaan warka habeen ammaanka Kismaayo aad loo adkeeyay waxaana halkaasi ku sugan wufuud baaxadooda weyn tahay xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariifna gorow ayay gaareen magaalada Kismaayo wararkii ugu dambeeyay calaamasaarka madaxweyne Madoobe ayaad ku daawan doontaan warka habeenay haga meediya waxaa kaloo warkeena ku jira madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taliyaal cusub ayuu maanta magacaabay kadibna dalka dibadiisa ayuu u baxay haddaba dalku aadan muxuu ka doonay faahfaahin ayaan idinkaga hayaa waxaa kaloo warka habeenay haga meediya qayb ka noqonaya Kenya oo heegan sare gelisay ciidamada jooga Nairobi iyo safaaradda Soomaaliya oo ku hanjabtay inaan taaba karin Ciise Tarabuun oo Kenya ku sugan waan soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya Kenya oo markan ku biishabatay nin lagu sheegay inuu yahay shabaab oo lagu magacaabo Ciise Tarabuun waxaa kaloo warka qayb ka noqonaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif oo maanta la kulmay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya haddaba madhaba maxaa ka jirin dawladdu ku dacweeyay qaramada midoobay waan idin soo gudbin doonaa madaxweynaha koonfur galbeedna wuxuu u yeeray gudoomiyaasha degmooyinka shabeellada hoose haddaba sababta loogu yeeray ku daa warka habeen hanti dhawarka qarankana dawladdu wuxuu ka fogeeyay inay gashay musuqmaasuq xilli la sheegay in dawladda 18 milyan ay lunsatay waan soo gudbin doonaa dawladda Soomaaliya waxa ay sheegtay inay isku soo dhibeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dibaddana waxaad ku daawan doontaan warka habeen wasiirka amniga Indonesia oo la dhaawacay xilli booqasho uu ku jiray iyo ciidamada Hindiya oo weerar khasaare geysay ka fuliyay gudaha gobolka Kashmir qodobadaasi wixii kale nagu soo kordho ayaad ku daawan doontaan warka habeenay haga meediya fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe YouTube channelkan haga media si aan idinku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kala hagaag markaana warkii oo fidsan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose oo in muddo go'doon ugu jirtay dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa maanta gaaray wufuud ugu cusleed oo hore dalkan madax kaga soo noqday qaarkood haatan xil ay hayaan qaar kamid ah madaxweynihii hore ee dawladda kumeel gaarka ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo siyaasiyiin kale oo caan iyo ku dhawaad 100 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka ee aqalka sare ayaa maanta waxay gaareen magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose wufuudan ayaa waxay ka qayb galayaan calaamasaarka madaxweyne Madoobe oo dib loo doortay kadib doorasho ka dhacay Kismaayo ay dawladdu qaadacday aan ku horeynay barqanimadii maanta wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo shalay ka baaqday safar uu ku tagay magaalada Kismaayo ayaa maanta gaaray halkaas waxaan halkaas ku soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe xubnahan ayaa markii halkaasi ay tageen waxa ay ka mahad celiyeen soo dhaweynta loogu sameeyay sidoo kale mas'uuliyiinta halkaasi tagay waxa kamid ah madaxweynihii hore ee maamulka Puntland haatan senator ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya senator Maxamuud Faroole intaas kadib markii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu tagay magaalada Kismaayo ayaa waxa soo baxay in wufuud kale ay maanta halkaasi ku wajaheen isla markaasina halkaasi ay gaareen saacadda Afrikada bari goor ay ku taagan tahay 8 daqiiqo ayaa garoonka diyaaradaha aadan cadee Muqdisho waxa ka duushay diyaarad sida wafdi hogaaminaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo mas'uuliyiin hore oo halkaasi ku sugnaa xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisa ayaa waxa ay ka qayb galayaan munaasabada calaamasaarka madaxweynaha dib loo doortay maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe magaalada Kismaayo ayaa waxa ay la circireysaa soo dhaweynta siyaasiyiin caan ah iyo ka qaybgalka calaamasaarka madaxweyne Madoobe intaas kadibna dhowr daqiiqo kadib waxa magaalada Muqdisho ka shiraacatay diyaarad siday madaxweynihii hore ee dawladda kumeel gaarka ah ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kala hogaamiyo xisbiyo mucaarad ah oo magaalada Muqdisho ka dhisan wufuudan oo ay sidoo kale socday xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay tageen magaalada Kismaayo waxaan halkaas ku soo dhaweeyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynayaashii hore ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo Galmudug madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale xubno kale oo halkaasi joogay oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxaana la rajeynayaa mas'uuliyiintan inay ka qayb galaan calaamasaarka madaxweynaha dib loo doortay maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ammaanka magaalada Kismaayo ayaa aad loo adkeeyay iyadoo sidoo kale xubnaha isbedel doonka ee Jubbaland ay ku sugan magaaladaas uu ku abuurmay fajac iyo qaabka dawladda federaalka ee Soomaaliya ay faraha kaga qaaday siyaasiyiinta soo aaday magaalada Kismaayo
waxaana la aaminsan yahay in tani ay tahay guul darro soo wajahda dowladda iyadoo hore ay u diidayso dowladdu in la tago magaalada Kismaayo oo la aqoonsado maamulka Jubbaland oo dowladdu ay ku tilmaamtay doorashadaas inay mid xalaal ah. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa darajada sare ee guud wuxuu u dilaacsiiyay Maxamed Cali Bariise waxaana wareegto ugu magacaabay tali ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sare ee guud wuxuu u dilaacsiiyay Cabdixamiid Maxamed Dirir waxaana uu magacaabay taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sareeyo guud Maxamed Cali Bariise iyo sareeyo guud Cabdixamiid Maxamed Dirir inuu alla u fududeeyo kaga rajeeyay howlaha loo egmaday. wareegtada madaxweynaha ayaa salka ku haysta dadaal joogto ah oo sare loogu qaaday tayada ciidamada tababarka iyo dib u habeynta ciidamada qalabka sida Soomaaliya. taliyaha ku-xigeenka cusub ee ciidanka xoogga dalka ayaa bedelay tali ku-xigeenkii hore ee ciidanka xoogga dalka Cabdi Xasan Maxamed Xijaar kaas oo loo magacaabay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed halka taliyaha ciidanka dhulka uu bedelay Odawaay Yuusuf Raag oo haatan laga dhigay taliyaha ciidanka xoogga dalka. laakiin markii madaxweynaha Soomaaliya uu soo saaray wareegtadaas waxa uu u dhoofay dalka dibadiisa. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wafdi hogaaminaya ayaa waxay gaareen magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya iyagoo wafdigaas halkaas ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa garoonka diyaaradaha ee Bola ee magaalada Addis Ababa soo dhaweyn har sare ugu sameeyay wafdigan uu hogaaminayay madaxweyne Farmaajo. madaxweyne Farmaajo ayaa Itoobiya kaga qayb galaya shir madaxeedka urur goboleedka IGAD oo maalmaha soo socda ka furmaya dalkaas isla markaasina ay ka qayb gali doonaan madax kala duwan. magaalada Addis Ababa ayaa waxa ku sugan madaxda dalalka Koonfurta Suudaan, Kenya iyo ra'iisul wasaaraha Suudaan iyo madax kale. madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale la filayaa intuu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa inuu kulamo la qaato madaxda kale ee ka socda wadamada Afrika kana qayb galaya shir madaxeedka urur goboleedka IGAD. dowladda Kenya ayaa la filayaa inay la wareegto gudoominimada urur goboleedka IGAD waxaana xilkaasi qaban doona madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta isagoona kala wareegi doona ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed xilkaasi. saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku sugan gobolka Gado ayaa sheegay in laba xubnood ka tirsan Al-Shabaab ay isku soo dhiibeen ciidamada dowladda ee ka howlgala degmada Garbaharey. labada xubnood ee magacyadooda lagu kala sheegay Guuliye Xareed Maxamuud iyo sidoo kale Cabdalla Naasir Ibrahim ayaa la sheegay inay in badan ka tirsanaayeen Al-Shabaab isla markaasina ay ka howlgali jireen deegaano ka tirsan gobolka Gado. saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee jooga Garbaharey ayaa waxay sheegeen in raggaas xiriir ay la sameeyeen markii dambana gacanta ay u soo galeen ciidamada iyaga hubkooda. saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay in loo gudbin doono laamaha kala duwan ee dowladda ee ku shaqada leh arrimaha iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. si kastaba ma jirto wax war oo dhankooda ka soo baxay Al-Shabaab ku aadan xubnahaas ay isku soo dhiibeen ciidamada dowladda ee gobolka Gado. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdilcasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa u yeeray dhammaan gudoomiyaasha maamulka gobolka Shabeellada Hoose ku-xigeenadiisa iyo gudoomiyaasha degmooyinka gobolka sida ay noo xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan Koonfur Galbeed. Ibrahim Aadan Najax gudoomiyaha Shabeellada Hoose iyo wafdi hogaaminayo oo ka kooban ku-xigeenada gobolka iyo kuwa degmooyinka ayaa gaaray Baydhabo waxaana la sheegay in ay kulamo ka wadaan magaalada Baydhabo oo ay la qaadanayaan madaxweynaha Laftagareen. warbaahinta gudaha ayaa xog ku heshay in wafdigan laga reebay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Shabeellada Hoose sidoo kalena gudoomiyaha maaliyadda ee gobolka Cabdifataax Xaaji Cabdulle balse inta kale ka kooban maamulka degmooyinka ay gaareen Baydhabo. wararka aanu helnay ayaa sheegay madaxweynaha Koonfur Galbeed uu doonayo inuu sameeyo xilka qaadis iyo magacaabis isla markaasina la xalin doona dhibaatooyin daran oo ka jira Shabeellada Hoose. bixitaanka mas'uuliyiintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo Shabeellada Hoose uu wajahayo xaalad adag oo u daran dhanka ammaanka iyo arrimaha bini'aadanimada waxaana muuqata in maamulka gobolka uu ku fashilmay maareynta masiibooyinka gobolka ka jira. Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi oo ku magac dheer Ciise Tarabuun ayaa waxaa lagu wargeliyay inuu tago safaaradda Soomaaliya ee Nairobi si uu kaga baaqsado in Kenya ay beegsato qoyskiisa oo meesha ka saaray inuu ku lug leeyahay arrimo la xiriira dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa ku taliyay in booliiska ay faraha ka qaadaan haddii uu soo galo safaaradda. Ciise Tarabuun ayaa waxaa doondoonaya laamaha ammaanka Kenya waxaana bishii Maaj ee 2019 lagu sii daayay ama laga sii daayay dowladda federaalka Soomaaliya xabsigeeda iyadoo xukun maxkamad u dhameysay sida dowladdu ay sheegtay. xukunka garka loo galiyay ayaa waxa markaas lagu eedeynayay inuu falidii ku amniga hore kaga shaqeey jiray sidaasina looga tirtiray dambiyada. Ciise Tarabuun ayaa markii koowaad la qabtay 2015 qabashadiisa ayaa ka dhacday deegaanka Ceelasha Biyaha ee duleedka Muqdisho kadib markii telefoon si sargaal Shabaab uu haystay gacanta lagu dhigay sida laga soo xigtay laamaha ammaanka. sidoo kale safaaradda Soomaaliya ayaa sheegtay in Kenya ay kaga digayso in Ciise Tarabuun aysan ku qaldamayso markaasina muwaadin Soomaaliyeed uu yahay oo uusan galin dambiga loo haysto. hanti dhowrka guud ee qaranka Maxamed Cali Afgooye ayaa sheegay in warbixin shalay ay soo saareen
oo ku saabsan warbixin sanadeedka 2018 si qaldan loo dhigay lagana been sheegay shir jaraa'id oo maanta warbaahinta ugu qabtay Muqdisho ayuu ku sheegay in warbixinta uu soo saaray ay dad gaar ah dana gaar ah ka sameysteen isla markaasina ay been ka buunbuuniyeen waxa uu dadka qaar ku dhaliilay in warbixinta aysan u akhrin sidii loo baahnaa isagoo ugu baaqay warbaahinta iyo dadka Soomaaliyeed inay dhameystirtaan adduunka oo dhan ayay ka jirtaa markii warbaahinta noocan oo kala la soo dhigo warbixin noocan oo kala la keeno in warbaahinta si qaldan ay u fasirato lagana faa'iideysto arrimaha siyaasadda waxaan ugu baaqay dadka Soomaaliyeed iyo warbaahinta inay warbixintan akhristaan oo ay dhameystirtaan hantida warka qaranka ayaa sidaas yiri ugu dambeyn waxa uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya looga baahan yahay inay ka faa'iideysto warbixinta uu soo saaray maamulka maaliyadda dalka warbixintan shalay uu soo saaray hantidowrka guud ee qaranka Maxamed Cali Afgooye ayaa saacadii soo dhaafay si weyn hadallaan uga yeeshay baraha bulshada madaxweynihii hore ee dowladda kumeel gaarka ah ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta oo Khamiisa waxa inta uu soo dhoofin Kismaayo oo kulan la qaatay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midowga u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswine kulankan oo ay Sheekh Shariif ku heliyeen madaxda xisbiga himilo qaran ee uu hogaamiyay ayaa waxa ay diiradda lagu saaray caqabadaha siyaasadeed dalka jira iyo aragtida xisbiga dimuqraadiga ee himilo qaran oo lagu eedeeyay inay horumarka dalka soo jeedaan wakiilka xogayaha guud ee qaramada midowga ayaa loo sheegay in maalmihii dambe ay dowladda federaalka Soomaaliya ku xadgudbaysay maamulka isla markaasina dhibaatooyin hor la soo sheegay oo ku aadan qaabka dowladda ay ugu dhaqmayso siyaasiyiintii hore ee dalkan ka soo talay qaramada midowga ayayna u gudbiyeen dacwad xisbiga himilo qaran fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe YouTube channelkan Haga Media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kala hagaag markaan akhbaraadkii dibadda nin ku hubeysnaa Toure ayaa weeraray wasiirka amniga dalka Indonesia xilli booqasho uu ku maray magaalo ka tirsan gobolka Benta afayeenka booliiska qaranka Indonesia ayaa xaqiijiyay dhacdadaas isagoo warbaahinta u sheegay in ruuxa weerar ka geystay iyo haweeneyda kale xabsiga la dhigay sidoo kale afayeen u hadlay isbitaalka Barkash oo dhaawac wasiirka la geeyay ayaa sheegay in dhaawac wasiirka loo soo gudbiyay magaalada caasimadda ee Jakarta isagoo intaasi raaciyay inay suuragal tahay in wasiirku uu baahdo qaliin sida ay warisay wakaaladda wararka AFP ruuxa weerar ka geystay ayaa looga shakisay inuu xiriir la leeyahay dagaalamayaasha ISIS madaxweynaha Indonesia Joko Widodo ayaa sanadkii 2016 u magacaabay General Wellington inuu noqdo wasiirka amniga 27 sano jirkan oo mar soo noqday taliyaha ugu sareeyay ciidamada ayaa lagu eedeeyay weerar dad badan ku dhinteen oo ka dhacay gudaha dalkaas ugu dambeyn militariga dalka Pakistan ayaa sheegay in ciidamada dalka Hindiya ay rasaas ay ka rideen xadka kala qeybiyo gobolka Kashmir ay ku dhinteen askar badan sidoo kale dad shacab ah waxyeeloobeen militariga Pakistan ayaa sidoo kale sheegay rasaastaas ay ku dhaawacmeen laba ruux oo dumar ah ma jiro wali wax war oo ka soo baxay dhanka Hindiya oo ku aadan weerarkan labada dal oo ku hubeysan quwadda nuclearka ayaa dhinac walba dhinaca kale ku eedeynayo inuu burburinayo xabad joojintii u dhaxaysay sanadii 2003 guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku saafmeerayaa warkii habeenay Haga Media tan war caynkani oo kale nabadgeliyo